waxbarashada mafhuumkaan ka qabnay iyo hadda waxbarashada hadda socoto iyo school systemka hadda socdo completely waxa waaye farqi weynaa laga yaabaa inuu u dhexeeyo depending on meelaha aad joogtid iyo dadka Yurubta joogaan iyo dadka Mareykanka jooga isku mid oo kale ma ahan dadka Yurubka waxaa loo baahan yahay joogaan 10 times inay naga indha furnasanadaan inay naga digtoonaadaan more than us because school systemka Europe waa very waxa waaye kanba Mareykan wuu ka daran yahay according to aniga inta aan ka akhriyay inta aan ka ogahay especially Ingiriiska ka reeb laakiin waxaan ka hadlaa Yurubtaan kaleeto بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودا وهذا ولاشين سعاد نور فيديو كانوا حاجة هلا سدح حير أما سدح رولز أو مهم والد والبلوغة بهاي إنه لإما سيو أكرديو هرمريدا وحبرش هذا عرور توضا إن شاء الله وحنا جينا نحكي فايدة سدح ذان حير أو مهم والد والبإنه كف جوك سنابه أو كور قبو أو قاعد دور كيسة محيط هاي محو قيب أو كقادن ويا مدائم ويا مثل ما بهنا سدحدان شيء إن الله سو بحد مركي emergency وقبصة مركو عنقاقي دبعتك سو قارت سكولك وحلو بها إنا مرول بقى طبقين سدحدان شيء مرول بقى على إيمانيس سو حاول مد كوبادا وحاول support إن عنق عاويسد support وحاول عاويتان إن عنق عاويسد وكو عاويسد ديانا أنت سكولك وأنا وكوفي عنا سومالدان support وكوفي عنا سدحدان شيء وحاول support monitoring iyo waxa waaye advocating so supporting waa ku fiican support waxa in unugeen meena caawino iskuulkii aan geyno quraacda aan siino u labisno diyaarino baagtooda everything ayna iyago diyaar iskuulka aan geyno waa ku fiicanahay badan amamooyinka especially Allah khayr ha sii door weyn ka qaata ilmahooda diyaariyaan in ilmahooda iskuulka geeyaan laakiin waxa taqsiir ku sameynay ani ahaan u maleynaa inta aniga aan ka ogahay waxa waaye monitoringka iyo monitoringka waxa waa in la socoshada in monitoring waxa la ina la socoto cunigaagi doortan labaad waa qaybta labaad ka hadlayo ina la socoto cunigan progress mo sameeynaya yani cuniga marka saddex walba bilood waxa waaye improvement sameeyo waay bishada la soo dhaafay bishan cunigan wax ma iska bedelo waxbarashadiisa cunigan waxbarashada kaliya ahan emotionkiisa ahan cunigan dareemihiisa ma cunigi wajacbuusnimo ma iskuulka la imaadaa cunigi emotionkiisa iskuulkii ma xiiseeyay miya wax cunigan muxuu iskuulka muxuu ku soo zaa'idinayaa naftiisa mar walba ina la socotid muxuu ku soo zaa'idinayaa muxuu ka baranayaa iskuulka maxaa dhib uga imaanayo iskuulka maxaa horumar oo ka helayaa iskuulka waxyaabahaas dhan ina monitor ku haysid waay homeworkiisa ma celinayaa homework le muhiim ma ahan xoogaa saarin grade iyo cuniga A ma helay iyo cunigayga wax ma bartay sometimes waxaa muhiim ina big picture ka fiirisid oo fiirisid cunigan muxuu ka baranayaa experience-iga oo hadda sameynayo muxuu mira oo ka dhalinayaa what kind of growth oo cunigan ka helayaa periodkan joogna xataa doon good grade helaynin cunigan skill kaleeta ma baranayaa independent ma noqonayaa cunigan confidentigiisa yani kalsoonidiisa naftiisa ma sii kordhoosaa cunigan اعتماد على نفسه ma la imaanayaa cunigan more social mu noqonayaa mise cunigan isolation iyo inuu kaligiisa noqdo inuu ismara negative experience ka saamaysa ma ku jiro cunigan hadda homeworkiisa oo na sameynoonin especially maaha roorona ka ilmaha in loo kala bixiyo ilmaha markay yihiin aadaa caawinaya markay xoogaha markay soo roonadaan iyaga inay doorkooda iyo ictimaad cala nafsigooda iyo homeworkooda inay iska caawiyaan adiga helicopter u naqlin oo maanta dhan aad controleynin laakiin adiga korkaas ka monitor garaysid la socotid casharka samaysay waxaan wixii lagu soo diray ka focus garay wixii homework ka baxaan ma ahan homework guriga ku soo laabto ku focus garay kuwaas inay cuniga adiga fiirisid adiga monitor garaysid korkaas ka warqabtid ka bacdina markii input meeshii cuniga u jeedid sliding ku sameeyno meel hada oo hoos uga dhacoy in ka warqabtid soo marka advocacy-ga marka ka warqabtid cuniga baahida u baahan yahay ka emotional ahaan ka dareen ahaan ka waxbarasho ahaan aqoon ahaan marka fahantid ana la socotid maxay marka ku fududeyna ina markuu cunigi u baahdo caawitaan kaaga baahdo advocacy kaaga baahdo ina u doodid advocacy waxa la ina cuniga u doodid wixii u baahan yahay access ina u helo resource-iga u baahan yahay waxyaabaha u baahan yahay iskuulka loogu talagalay oo xaq u leeyahay in loo suurtageliyo ina adiga marka u doodid waay cunigaagi big advocacy u tahay adiga hadaan u doodin cuniga waxyaabo badan aan access u helin oo ka faa'iideynin oo ka faa'iidi lahaa adiga fujigsanaan lahayd
ka warqabi lahayd adiga u doodi lahayd dooditaankan waxaan kuula talinaa markaad doodaysid waa inay ku cadaataa waxa aad ku doodaysid waa inaa fahansanaataa waxyaabaha adiga aad rabto waxyaabaha cunigaaga oo face garaynayo wax problemka meel oo ka jiro maxaa rabtaa inay kuu suurtagasho doodaan aad sameynaysid sidee natiijada ee ka rabtaa in adiga isla fadhiisatid first marka ilaa adiga mowqifkaaga oo ku cad yahay waxay kuu fududayna in adiga confidence lahaatid kalsooni isku lahaatid in waxa adiga aad ku socotid ay xaq yihiin oo cunigaaga advocacy-ga lagaaga baahaya ay xaq tahay ee adiga marka wax kasta ay dhibaato kasta ay kusoo صعوبات كستا kusoo wajahdo diyaar u tahay in handle garaysid diyaar u tahay in adkaysatid diyaar u tahay dee lagu dhaho wax adiga wax kaa qaldan yihiin adigaanu fahansanay school systemka adiga waa lagaa easy kuma ahana qofka markaa wax weydiisatid school systemka advocacy-ga samaysid hore waxay kama helaysid you have to really push through you have to really know what you're advocating for and keep advocating and get dadka rabtid the right person in connectionka finally la samaysid waay sometimes qofka wax weydiisatid first macluumaadaada la hadashay macluumadan inay ku caawina laga yaabaa principal in ay sheekada gaarto mise qof principalka inay ka weynaato oo qof kale sii gaarto kuwa school boardka sii gaarto depending on meesha adiga aad joogtid markaas so ha isku ekeynin iskuulkaas ley qof walba qof ha ka sii sareeyo macluumaada waa laga sii sareeyaa principalka waa laga sii sareeyaa so waa ina ogaatid dariiqa u maree advocacy-gaagii oo mise dooda aad rabtid inaad u doodid cunigaagii dariiqsiaa u maree maxaa waaye hadafka kuu cad aad rabtid cunigaaga inuu gaaro aan heloonin maxaa waaye waxyaabaha rabtid in laga qaado dhibaatooyinka uu face garaynayo taasna mar walba inay ku daba socoto waa labadan shay waa isku xiran yihiin haddaa advocacy keligeeda aad samaysid oo cunigaa u doodid wixii loo fududeeyo mise wixii aad rabtid uu helo aad laakiin aan caawinaynin guriga aan ka caawinaynin oo cunigii leyd imaanaya iskuulka mise cunigii isagoo hurdo fiican helin imaanaya iskuulkii mise isagoo gaajaysan mise focuskiisa iyo attentionkiisa dhib ku tahay galaaskii una ka faa'iideynin oo waxna ka samaynoonin advocacy keligeed wax kuuma tarayso haddii adiga monitor garayno sida cunigii oo gradekiisa monitor keliina inuu ka warqabtid gradekiisa wax kuuma tarayo waa inay isla socdaan saddexdooda waa inay isla socdaan supporting ina cuniga caawisid oo waxyaabo u fududaysid system u samaysid system guriga u samaysid schedule iyo waxyaabo u samaysid oo cunigii caawinaya ina adiga la socotid gradekiisa caafimaadkiisa nafta caafimaadkiisa oo jirka all that stuff aad la socotid ina also markii advocacy loo baahdana advocacy u socotid oo cunigaaga markuu xoogaha soo roonaado bartid self advocacy muhiim waay cunigaaga adile mar walba ma daba soconaysid cunigaaga stage oo gaara oo u baahaya everyday qofku waxaa experience face garayne u baahnaana in adiga naftaada u hadasho cuniga naftiisa u hadlo cuniga naftiisa xaqiisa soo dhacsado so advocacy ina adiga bartid oo advocacy-gaas oo marka uu gaaro tartiib place oo asaga naftirkiisa advocate garayna oo barto inuu challenge garay systemka inuu challenge garay macluumaadka مع احترام أنا قلنا المسلمين أنا هو احترامك أو معلمك هو very مهم إن المهلو أساس إن معلمين تود احترامان لكن احترامك كام قاضايو إن هذيك الحق عنق حقي سو دوضو أو هدي وحق الله لجوس سمينه مسادي دبعت ملك سو جالس إنه إسكهضلو كم قاضاي سو احترامك سنكوك هنا أو advocacy كيسن أو بريسا وستيج ولكن تاس محوكا أركا muxuuna adiga bari kartaa marka adiga naftirkaaga experience soo bildigaraysid conference-ga adiga iska soo dhistid oo adiga naftirkaaga cuniga markuu yaraa advocacy-ga in uu doodid cuniga bilawdid oo ilmahagi u doodaysid oo ku arko marka u dooday oo marka u dooday oo playground-ka ugu dooday mise marka ugu dooday meel kaleeto iskuulka ugu dooday cuniga inuu ka arka waay when you're advocating and how are you advocating marka dooday ma politely ma tahay qof oo degano wuxuu rabo ka saayo oo tartiib u hadlayo xaqiisa dhacsanayo soo naqayninin asoona too much emotional naqanin oo balance garayn karo it's okay why sometimes emotional waa naqanaa laakiin waxaa muhiima ina adiga polite tahay oo cuniga wax kaa baranayo adigana naftirkaaga dadka kan xataa adiga dhow tooshka lagu soo ifinayno lagu dhayn qofta iyada wax ka qaldan yihiin mise iyada mentally ila mise iyada adigana dhib kaaga soo gaaray adoo xaqaa waxaa dhacsan kartaa xaqaaga oo shib adoona aada qaqaylin aada xaqaaga dhacsan kartaa so waxaan ku dhihi lahaa haddii cuniga iskuul problem kaa haysto
isdeji fahan waxa arabtid la soco mar walbana saddexdan shay ku laazim mar walba advocacy way socotaa advocacy maba dhamaataba saddexdan shay ma dhamaada monitoringkii iyo caawitaanka iyo ka warqabka iyo u doodista way istaba socotaa mar walba isku cunig ah dhashay mar walba ka waalid ahaan way ku daba socotaa waana waxba loo baahayaa cunigaaga kaga baahayaa mar walba waay advocacy muhiim waa school systemka ma fududo ani ahaantay experience badana u leeyahay I had to advocate aniga idila share garay wax yaro story ah inaan ku dheeraado marabi cunigayga markii oo la soo geliyay hadda koor cunigayga markii la soo geliyay third grade I think third grade oo ahaa macalin waxaa loo sign garay macalimiinta sometimes iskuulooyinka qaar waa select garaysan kartaa waa dooro kartaa macalinka arabsid iskuulooyinka qaar anaga Mareykan saas waaye badanaa waa dooranaya macallintii aan u dooray sanadkaas ilaha markiis waa la switch garay third grade inay dhigtay ahayd macallimadii waxaa loo soo wareejiyay second grade inay dhigtay qof second grade shaqadooda ka baxay iyadii marka waxay qaadatay booskaas qofkii shaqada ka baxday second grade ay dhigo noqotay cunugayga marka macallin kaleeto aan cusbeen laakiin macallimiinta oo grade-ka saddexaad glass kaleeto aniga aan ku qorin lagu assign garay ay noqotay classkaas qofkii dhigi lahaa inuu naa kala noqoto maadaama macluumaadii aniga u dooray laga wareejiyay grade-ka iska wareejisay iyada dooratay inay dhigto second grade anyway schoolkii markuu cunugii bilaabay dhib ma lahayn is okay waaye laakiin macluumaadii waxay ahayd macallin xun oo racist ah oo cunugay very self motivated oo ahaa cunuga iskuulka ku fiican oo focus problem weligiisa problem laga soo sheegay suddenly waxaa arkay cunugii oo interestigiisa loo naqday cunugii oo waxyaabo ii sheegay aniga emotionally ahaan waxyaabo cunugii damage soo gaaraya arkay emotionally like waxbarashadiis okay ahayd also challenge ma lahayn waxbarashadan ma challenge garaynaynin cunugaaga ha isku halaynin progress reportigan waxyaabahan oo sanadkii parents meeting ay dadku waalidiinta ay u wacayaan ay kula sheekaysanayaan cunugaaga wuu fiican yahay ay ugu keenay waxaas ha qaadan aan ku dhihi lahaa waxaas maalinaan ka hadlaa insha allah progress note-ka waxyaabahaas laakiin ilgoori ku fiiri wax kasta cunugaaga wuu fiican yahay reading wuu ku fiican yahay writing wuu ku fiican yahay wuu ku fiican yahay ha qaadan adiga la socda cunugaaga inuu ku fiican yahay wax walba adiga inaa ka warqabtid waaye adiga inay ku caddahay wax cunugaaga ku fiican yahay wuxuu cunugaaga oo struggle oo ku qabo oo u baahan yahay support iyo progress koo sameyno iyo supportiga oo helo waa in adiga ku fiicnaatay laakiin badanaa waxay ku dhahaan wuu ku fiican yahay cunugiina very low yes way ku fiican yahay laakiin expectationkooda low ah expectationkooda very low ah expectation high ma siinaa ilmaha especially oo ilmaha students of color ilmaha oo madowga ah waxaa waaye hadduu expectation and challenge zaa'ida ma siinaya macalimiinta qaarna amazing waaye so anyways waxay ugu qaadatay marka cunugay marka arkay maclimadaas inay maclimad fiican ahayn macalinka okay way sometimes personality fit hadday ahayn cunugii still waa ku caawinaya hadduu cunugii damage emotionally kasoo gaaraynin oo maclimadii ayna abuse garaynaynin mise ayna waxyaabo xun ku sameynoonin oo cunugii dhibaato u keenaya ka dareemihiisa iyo ka caatafadiisa iyo maskaxdiisa laakiin maclimada markaa arkay in cunugii dhibaato u keenayso waxaa isku day aan bedelaad codsado of course most of the schools waxay ku dhahaan ma la bedelaay iskuulka wuu bilowday macalin ma la bedelaay ma lagu bedelaay systemkeen anaga wax bedeliltaan maba la dhahaba ma qabno ligu dhahay so markay saas igu dhaheen I had to push through I knew that they will if I push it through inay la bedelaay waa ogaada aniga aan kusii adkaysado hadda aniga aan asdejiyo oo aniga maclimadii xataa kama complain garaynin ma dhihin maclimadan saan waaye iyo maclimadan racist waaye iyo ma dhihin because I knew I did my research I knew badan haddaa maclimiinta attack garayso they try to inay iyagana ay maclimada difaacaan maclimada iyagana waxay isku dayaan inay maclimada difaacaan ay ku dhahaan proof la keen iyo maxay ku dhahaan cunuga iyo no proof grace ay kuga racist nimadeed maxaa keenaya iyo stuff like that so ma barabin an waxaan maclimadan perfect way but it's not the right fit cunugay right fit uma ahan cunugay emotionally he's having difficulties anxiety symptoms ku imaadeen calool xanuun cunugii iskuulkii oo dhibsanaayo subaxii markuu kacayo ku dhahayo caloosha ay xanuune waxyaabo physical symptoms ku imaada so waxaan cunugay he's struggling caawitaan u baahan yahay maclimadan waxba uma qabi laakiin cunugay maclimadan isma anfacayaan glass kala u rabaa cunugay waxay noqotay inaa iskuulka ka celiyo inay la yaabaysiin but I had to advocate waalid walba inuu saas ugu advocate garay ilmihiis waa muhiim anaanan haysataa
ahaa qof wax soo bartay mise ahaa qof aan wax soo barin mar walbaba inaa cunigaaga u doodid mar walbaba inaa cunigaadi adiga awokaato u naqatid xaqa usoo dhicisid waa muhiimad anagana saara waay marka waxaa ay naqatay inaa cunigii iskuulka ka celiyo maalmo dhan week dhan cunigayga iskuul ma aadin aan dhaha cunigayga amdhaankana maku qasbayo cunig xanuunsanoo symptoms qabo markay arkeen marka inay iga taalo yacni run iga tahay waa la ii ogolaaday afterward anyways waa la ii bedelay alxamdulilah maclimad amazing oo social work background qabto oo ilaahay fadligiisa noo sakhiray ay naqatay maclimadii loo wareejiyey ilaa hadda saameyntii ku saameysay ee ku dhaaftay cunigayga is very clear waxyaabo saameyn weyn ay ku dhaaftay oo positive maasha allah maclimad fiican ilaahay noo sahlay laakiin waxay ahayd inaa usoo dagaalmo inaa waxyaabo badan usoo maro tawfiiqdan alxamdulilah ilahana waafijiyey so waxaan ku leeyahay waxaan kuula sheergaraynaa aan kuu sheegayo storygaas waxaa waaye annaga dhanayna saameysaa ka waalid walba iskuulkiisa ilmaha iskuulka ugu jiraan ay soo waajihi kartaa tan especially marka anaga dadka oo qaxootiga ah iyo dadka oo madowga ah saas waaye so waxaan ku dhihi lahaa iskuulka markuu beginningka yaha badanaa connection specifically more xoog la saaraa haddana especially hadda sanadkii halfley la maro cunigaaga mar walbaba la soco monitor garay progresskiisa support garay ha ka gaabsanin saddexdoodana waa isku xiran tahay mid haddaa ka gaabsato saameynteeda waa arkaysaa insha allah waxaan rajeynaa in wax ka faa'iideeyo